إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. markale kusoo dhawaada dhegeystayaal daawadayaal muxaadaradeennii qaybteedii labaad ee barbaarinta caruurta. muxaadaradii hore waxaynu kaga hadalnay juhdigii ambiyada nabiyadii ilaahay calayhimu salaatu wassalaam, dadaalkii ay ku bixiyeen iyo ducadii allah ay baryeen in ilaahay uu ku arsaaqo awlaad saalix ah ilmaha markii ay dhashaan iyo intaysan dhalanba. waxaynu maraynay oo dhexda inoo maraysay waxyaabaha ku imaan kara ilmo wanaagsan in la helo. waxaynu kaga soo hadalnay qaybta koowaad, ilmo wanaagsan in la helo waxaa ka horeyso azawja saalixa, haweeney wanaagsan inaad guursato, sida nebigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam, fadfar bidaati ddiin taribat yadaak, ku guulayso buu yidhi midda diinka u saaxiibka ah, gacantaadii ha ciidowdee. yani haddii aad weydo midda diinka u saaxiibka ah, wax walba waa aad weyde weeye. waxaynu kaga soo hadalnay sidoo kale in guurka waxaweyaan uu noqdo guul xalaal ah. guurka waxa weeyaan waxaa loo shardiyaa inuu xalaal yahay, sida nebigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam, laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin. nikaax ma jiro ilaa waxa weeyaan weli inuu jiro mooye. nikaax aan weli ka warqabin iyo laba markhaati oo cadaalad u saaxiib ah, nikaax aan lahayn, nikaaxaasi waa baatil buu nebigu sala allahu calayhi wasalam unoo sheegay. waxyaabaha guurka ilmaha waxa weeyaan wanaagsan lagu heli karo waxaa kaloo ka mid ah in waxa weeyaan markii jimaaca uu dhacayo, labada isguursaday markii jimaaca ay sameynayaan in ay akhriyaan adkaartii sunnada ahayd oo ah bismillaah allahuma jannibna ashaytaan wajannib ashaytaana maa rasaqtana. ilaahay magaciisa ayaan ku howlgalaynaa, ilaahow naga fogey shaydaanka, naga fogey wax alla wixii aad nagu arsaaqdana shaydaanka ka fogey. taana waynu ka soo hadalnay. markii waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmo uu ku arsaaqo reerkaasi, waxaa la rabaa inay ducaystaan oo ilaahay baryaan, sidii nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo waxa weeyaan ummunaa xawaa. nabiyullaahi aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay inuu ilaahay uu baryey, iyo ummunaa xawaa hooyadeennii xaabo ilaahay baryeen markii ilaahay uurka uu siiyey. waxay dhaheen lain aataytanaa saalixan lanakuunanna min ashaakiriin. ilaahu haddii aadna siido ilmo wanaagsan waxaan ahaanaynaa kuwa kugu shukriya. marka xilligaana waxaa la doonayaa in ilaahay la baryo, in awlaad saalixa inuu ilaahay uu siiyo. ka bacdi waxa weeyaan ilmaha markii ay dhalanayaan, marka ugu horeyso waxa weeyaan ilmahaas adduunyada ay yimaadaan, waxaa la rabaa in la waafajiyo sida sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam. ilmaha marka ay dhalanayaan oo adduunka ay yimaadaan, marka ugu horeyso waxaa sunno ah in dhegta midigta looga aadaamo, dhegta bidixdana looga aqimo, magac fiicanna loo bixiyo. ilmaha soo siyaaday adduunyada yimidna in la isugu bishaareeyo. maalinta toddobaad ee ilmahan ay dhasheen, 7 maalin ka bacdina waxa weeyaan in ilmaha la waqlalo ama wanqal loo sameeyo, oo waxa weeyaan maalinta 7aad xoolo laga qalo. intaasoo dhan waxay gogol xaar u yihiin ama hordhac u yihiin ilmahaas waxa weeyaan in ay hagaagaan ayaa waxa weeyaan loogu talagalay. marka barbaarinta caruurta waxay ka soo bilaabatay guurka ka hor, wayna sii soconaysaa. waxaa kaloo sunnadu ay tahay waxa weeyaan in waxa weeyaan ilmaha loo duceeyo oo aan waxa weeyaan la habaarin ayaa wanaagsan. markii ilmahaas ay dhashaan waxa weeyaan in loo geeyo qof waxa weeyaan wanaagsan oo taqi ah, oo ilmaha taxniig u sameeyo, oo waxa weeyaan afkiisii wax ugu calaaliyo, ka bacdi ilmaha afka loogu shubo, sida waxa weeyaan timir oo kale inuu qof wanaagsan loo geeyo uu calaaliyo, ka bacdi timirta ilmaha la siiyo, si waxa weeyaan ninka wanaagsan uu afkiisii ilmaha wax ugu bilaabo. iyaduna waxa weeyaan waa wax sunno ah weeye. waxyaabahaas oo dhan marka waxa weeyaan ilmuhu waxay u tarayaan mustaqbalkoodii iyo adduunyadan ay yimaadeen bay waxay u noqonayaan hordhac wanaagsan bay u noqonayaan. ilmaha marka waxaa la rabaa in aadaabta la baro markii ay gaaraan 7 sano. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay in waxa weeyaan la faro salaada inay tukadaan. muruu abnaa'akum
caruurtiinii amra buu yidhi nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam salaada amra 7 sano markii ay gaaraan 10 sano markii ay gaaraanna waxa weeyaan salaada u garaaca buu yidhi oo ku garaaca salaada haddii ay tukan waayaan jiifkana kala geeya marka barbaarinta wanaagsan in lala yimaado ayaa wanaagsan haddii ilmaha marka mumayiz ay noqdaan 7 jir ay noqdaan iyo wixii ka dambeeya waxaa xoog u bilaabmayso tarbiyadoodii oo ah in la baro quraanka kariimka ah ee la geeyo madaarista wanaagsan ee dadka caqiidadoodii wanaagsan tahay ee la baro ilmaha quraanka kariimka tawxiidka axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam in lagu barbaariyo ayaa la rabaa si ilmahan waxa weeyaan ay ula qabsadaan bi'adaas wanaagsan ay ula qabsadaan laga fogeeyo marka macallimiinta xunxun waxa weeyaan caqiidadoodii aan saxsanayn ama aan la garanayn waxa ay dadka barayaan iyo meesha waxa weeyaan ay wax ku soo barteen ba aan la garanayn in ilmaha loo raadiyo macallin wanaagsan ayaa la doonayaa sida looga fikirayo wax ay cunaan iyo wax ay cabaan ayaa la rabaa in looga fikiro cidda wax baraysa iyo waxa ay baranayaan iyo cidda ay la saaxiibayaan iyo cidda waxa weeyaan ay wax la wadaagayaan in la socdo lama doonayo kaliya in waxa weeyaan xil iska saaro cunida iyo cabida dadka qaar baa waxay xil iska saaraan kaliya ilmahan wixii ay cabi lahaayeen oo kaliya iyo wixii cuni lahaayeen iyo daawadoodii bay aad u daneeyaan laakiin tarbiyadoodii barbaarintoodii iyo cidda ay la soconayaan iyo meesha ay wax ka baranayaan kama warqabaan waxa la doonayaa marka in aad loola socdo waxa jirto laba tayaar ayaa jiro oo halis ah oo ah dadka waxa weeyaan dadka wax baraya waxay u kala baxayaan kuwa waxa weeyaan ka gaabiyay oo waxa weeyaan diinka aan si sax u baraynin iyo kuwa waxa weeyaan ka badbadiyay oo qulubi gaarsiiyay ilaa ku xadgudbaya oo waxa weeyaan wax aan loo baahnayn markaasi ilmaha ku barbaarinaya waxyaabahaas oo dhan marka waa in laga fogeeyaa sidoo kale guryaha waxa la rabaa in laga ilaaliyo wax alla wixii fasaadka ilmaha ku barbaarinaya sida heesaha musiga iyo fiidiyoyaasha iyo telefishinada iyo wax alla wixii waxa weeyaan oo xun sida waxa weeyaan gabdho waxa weeyaan guryaha ka shaqeeya oo ajaaniba in la keeno iyo wixii la mid ah oo ilmaha looga tagto maanta dhan hooyada ama waalidku uu maqan yahay oo la dayaco taana waxa weeyaan lama ogolo marka waalidiinta waxa saaran xil aad iyo aad u weyn oo ah barbaarinta caruurta oo ka weyn kan raashin raadinta iyo caafimaad raadinta aysan ahayn mid ah in diinkoodii la ilaaliyo waxbarashadoodii la ilaaliyo asxaabtoodii dadka ay la saaxiibayaan la socdo ayaa wanaagsan iyo dugsiyada ay wax ka barayaan maamuladoodii iyo macallimiintoodii caqiidadoodii in la socdo ayaa wanaagsan oo lagu xiro ilmaha masaajidada lagu xiro macallimiinta lagu xiro xalaqaadka tacliimiga ay ka bartaan tawxiidka fiqiga siirada axaadiista naxwada kulli ay ka bartaan ayaa la doonayaa lagu barbaariyo diinka islaamka si waxa weeyaan ilmahaas aysan u noqon ilma aan waxa weeyaan diin lahayn oo aan mustaqbal lahayn looga fogaado بعض السلف dadkii wanaagsanaa ee horeeyay waxay dhihi jireen cilmigan waa diin ka fiirsada qofka aad diinka aad ka qaadanaysaan bay dhihi jireen marka cilmigan waxa laga qaataa culimada laga qaataa sida nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam wa innal ulamaa warathatul anbiya hum warathatul anbiya culimadii baa dhaxashay anbiyadii nabiga sidaas noo sheegay marka waxa la doonayaa in caruurta iyo xaasaska iyo kulli laga ilaaliyo حمانته الله وحوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كإلى ليبوليه الله نفتيني إيو أهلكيني نار لغو شديو دقحان إيو حويان دادك لغو شديو تربية دا وناكسن إلمها هدي أي هلان والدكم حفا إذيا إلمه يهاقاقا ينمركا وريسو هدي والدك أو دنتنا وحويان إلمها وحينقانيان إلما باريا usoo duceynaya waalidka isagoo adduunyada joogana waxay noqonayaan kuwa wax u tara ay noqonayaan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay ida maata ibnu aadam in aadam haduu dhinto in qata'a amaluhu illa min thalath amalkiisa dhan waa uu go'ayaa saddex shay marka laga reebo sadaqatin jaariya sadaqa soconaysa uu la baxay oo cilmi yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacayo aw waladin saalixin yad'u lahu ama ilmo wanaagsan marka uu duceynaya markuu dhinto ay leeyihiin rabbi ighfir li wa liwalidayya رب ارحمهما كما ربياني الصغيرة إله أنيق لبديد والد نودن بداف إله أنحريسو سيدا إيسو برباريين أنيقو ير ساسي لي مرك الماء تاوح إيماني سامرك وريسا دي تربية ونكسن آد بربارسو لكن هداد ميل عدلا وقد تكتو أديق يادكو عاسدي إساقو ير إساقنا إساقو وين يوكو عاسينيا مركو حالة دوني يعني الماها بربارين تودي حلوين لسكسارو أولد صالح يدعو له أما إلمو ونكسن يوكتغي أسو دعينيا مركا إلمها ونكسن
waxa weeyaan waalidka indhihiisii iyo ishiisii ayaa ku qabowsanaysaa oo waalidku waxa weeyaan indhihiisii ku qabowayaan ilmo wanaagsan markuu arko ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay in jannada uu gelinayo waalidka wanaagsan iyo ilmaha la barbaariyay ee barbaarinta wanaagsan ku barbaaray nasiibka u helay inay jannada labadoodaba galaan ilaahay wuxuu ballan qaaday in waxa weeyaan isku darajo ka dhigayo hal meel uu wada keenayo الله وحوليا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنة ليرة هذا جنات عدن ونقاشيه جندي أي قليان أي وحويان عد الله عدي ونكسنات أبيا شودي حاسس كودي عرور تودي مركا ابن كثير رحمه الله وحوليا مركو آيات فسري أي يجمع بينهم وبين أحبابهم من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة يعني وحال كل من يا أيها يدك إسجعلاين الدنيا أو والدينتي أهلكي عرورتي وادتكي وحوين إلهي وعلفي نصيبك وهلين الجنة قالان أيها كل من يا سي إشودي وقبوسته حتى وحوين كي درجة يسيه سيسي وعلى سوق هذا يا درجة سرا يا لكين يا عرورتي ما دام والدك ودرجة في عن وهلي ونصبر باري الدنيا المهنة أي نصيب وهلي وعيني والدك درجة يسوق قالان isagoo waxa weey waalidka lagu sharfayo ilaahay uu ku galadeysanayo ilmihiisii uu soo qaadaya darajo sare ayuu markaa keenaya taana waxa uu daliila aayada Allah uu leeyahay walladina aamanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahin kuwa iimaanka laga helay oo caruurtoodina iimaanka ay ku raaceen Allah wuxuu leeyahay waanu haleeshineynaa caruurtooda waynu ka daba keenaynaa وهذه أباها جنة الفردوس أهلي المهنا أهلين جنة كهوسيدة إذا أباها لو شرفيو ووحوي إلهي وكوجل الذي سنيو المه والله سودوين يا أباها درجة يسي بوسكي سالو كينيا وما آلتناهم من عملهم من شيء قف عمل كيسي لقد ما يولغ نسقى من أين مجرته كل امرئ بما كسب رهين مركا عرورت إني ونكسن هذا ولا ليال أسباب تاسفر بدن يجدت كاسفر بدن بالله مريا إلهي سبحانه وتعالى وحنك رجينينا إنه عرورت إنه هجاتيو هذه المها نوع هدير تربيته دي هجاتشينو أيقنا باري بينو نقانيان هذه المها تربيته هذا إنه كل لنا هذا علمه يحلابيان هذا حل هذا هي علمه ويوقع عسين وقوة عن صبر باري مركة تربية بهيمية إن الإسك إلى اليوم بربارنتا أو حولها أو كلا أو حولها راشين قالوا ضادنا يا إسكعونيان إسكعبيان لكن علمه حبايين إلا برباريو أو حويان دين كلا برو علماء ذا لو حرو مساجد ذا لو حرو سي وحويان أيقنا يسوع أنفعان والد كانوا أنفعان مستقبل كإسلام كي مسلمين تنوع أنفعان أيال ربا مركا محاضرة دي الكاسيان قصو قبينية قيبتي لبات بربارين تعرورتا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.